Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo bixaysa dagaal culus oo qaybo ka mid ah magaalada Kismaayo ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland iyo ciidamo daacad u ah Cabdinaasir Seraar oo horey u sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegay in dagaalka uu bilowday kadib markii taageerayaasha Cabdinaasir Seraar ay isku dayeen inay dhigaan dibadbax ka dhan ah maamulka Jubbaland ee uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii, waxaana aagga uu ka dhacay la sheegay in uu degan yahay Cabdinaasir Seraar, sidoo kalena ay ku taalo xaruntii baarlamaanka Jubbaland. Dagaalkan ayaa imaanaya xilli garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo uu kulan uga socdo madaxweynaha Jubbaland iyo safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Soomaaliya. Xaaladda meelihii uu dagaalku ka dhacay ayaa kacsan, waxaana weli la arkayaa ciidamo isku hor fadhiya iyadoo dadka degan ay muujinayaan baqdin la xiriirta in uu dagaal kale meeshaasi ka qarxo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xafiiskiisa kula kulmay agaasimaha guud ee Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan waxbarashada, dhaqanka iyo sayniska Andrew Lucas oo booqasho ku timid magaalada Muqdisho. Kadib kulankaasi oo looga hadlayay horumarinta wada shaqeynta Soomaaliya iyo UNESCO, ayaa wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre oo qayb ka ahaa shirka iyo Andrews waxa ay kala saxiixdeen heshiis Soomaaliya iyo UNESCO iskaga kaashanayaan horumarinta waxbarashada iyadoo loo adeegsanayo tiknoolajiyadda casriga. Wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre ayaa munaasabadaasi saxiixay heshiiska ka sheegay Soomaaliya ay aaminsan tahay in dhaqanka ay qayb ka tahay sooyaalka bulshada iyo jiritaanka, islamarkaana muhiim ay u tahay horumarka iyo higsiga mustaqbalka, isagoo intaasi raaciyay in Soomaaliya u taagan tahay xorriyadda, xiriirka iyo wada shaqeynta kala dhexeeya UNESCO. Soomaaliya ayaa UNESCO xubin ka ahayd laga soo bilaabo 1960kii. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in ku biiridda Soomaaliya ee ahdiga UNESCO ee 1972 ilaa 2003 waxay horseed u noqon doontaa in la dhowro goobaha taariikhiga ah, dibna loo soo nooleeyo hidaha dhaqanka, laguna daro diiwaanka caalamiga ah ee gobollada taariikhiga u ah Soomaaliya.